waxaan runtii maanta wiilal idin la mid ah oo Soomaali ah oo idin la dhashay ayaa nasiib darro ayagoo cadowgaas wadanka haysto ayada oo aan dagaalka ku jirno ayada oo aan ciidanka aad idinku u darbantiin sida dalkii sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celin lahaydeen kuwaad soo celin lahaydeen nasiib darro kuwa kamid ah ayaa xabada isu haysto isdilaya reehebel isu dilay oo meelo badan oo dalka kamid ah isku haysto isku dilay waa jahli waa jaahiliyo waa takhalluf waa fadhiidnimo iyo haraannimo iyo foolxumo dalkeenna haysata waaye dadkeenna waxaan ugu baaqayaa inay caqli yeeshaan 30 iyo dhowr sano kadib oo dhibaato walba ay soo mareen inay meeshii ay ka burbureen iyo wixii burburka u geystay iyo meesha ay ku dalanbaabeen oo ay ku baabeen haddana inay halkii ka soo bilaabaan oo weli xiiso u sii qabaan reebel weliba inay isu dilaan waxa waaye waa nasiib darro waxaan leenahay dagaalada joojiya waxaan ugu baaqayaa madaxda dawlad goboleedyada oo runtii ugu horeyso hadda aan ku ammaanayo dawlad goboleedka galmudug madaxdooda madaxweynaha oo dadaal badan ka geystay arrintaas waxaan leeyahay arrintaas si laba laaba arrintaas si laba laaba hal la joojiyay dagaaladaas dalkaani hal cadow buu leeyahay maanta waad ogtihiin laba dagaal baan ku jirnaa oo culus dagaal kale oo gudaheena uma baahnin dagaalka koowaad aan ku jirno waa midka khawaarijta ee dalkeena iyo dadkeena naafeeyay oo aad ogtihiin habeen iyo maalin inaad dagaal ku jirtaan oo aad shahaado qaadataan oo jihaadkaas ku jirtaan dagaalka labaadna waa dagaal diblomaasiyadeed oo kula jirno dawlado iyo dad kale dadyow kale oo u maleeyay ama u arkay in ay si dhib yar dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah inay isaga qaadan karaan sidaa darteed annagu waxaan kula jirnaa dagaal adag oo diblomaasiyadeed dadkana mashquulinaya marka ay Soomaaliyeed nagu mashquulinaya in hebel iyo reebel deedna dhiiga wiilasha Soomaaliyeed si raqiis ah ku daadinaya waa dambiilayaal waxay u hiilinayaan cadowga haddii uu yahay kadibada iyo haddii uu yahay khawaarijta ugu dhex nool intaba ayaga u shaqeynayaan ama hays ogaadaan ama aysan sugaanin laakiin ayaga u adeegayaan waxaan hubaa wiilasha yaryar ee dagaalamaya shidaalka iyo rasaasta ay ku dagaalamayaan ayagu ma laha waxaa leh kuwa waaweyn kuwa dibad jira kuwa dalka jooga ganacsato odayaal dad Soomaaliyeed oo aan wiilasha yaryar ee baadiyaha iska jooga ee aan fursad waxbarasho badan oo kamid helin iyo kuwa yaryar oo arday ah oo hadeertan iskuulada intay ka baxaan leeyahay dagaal gal reebel baatiine dadka abaabulay ayaga ma aha dad baa abaabulay marka dadkaas ha ogaadaan in la xisaabtamayo آخرنا إلهي بالله حسابتني أدونكنا ومدة الصوماليات بالله حسابتميس والد بيليال عروب باقي يا أنت كرامة له شرفت له وأيوه الرجال مدح دقنك مدح قبائلك أقوي هنود كجران علماء كجران وقبلها الصوماليات كجران ودليل هذا مير كقبت كجران دقالة صدق بوجوش dalkan in hal cadow leeyahay cadowga laga aado annaguna waxaan leenahay war la dagaalama cadowga idin haysta oo iska dhiciya ayaguna ayagii baaba cadow soo arko isdilay marka waa kaaf iyo kala dheeri wali dalkeenu waa dadkeenu waa miir laayahay miirka Allah soo celiyo kuwii waxa soo dhan ay u yaaleen oo waxa la rabay inay wax ka qabtaan kala dhex galaan kuwa mujrimiinta ee dadka shidaya soo qabtaan waa idinka marka wala idin sugayaa waxaan rajaynayaa inaad kaalinta ka soo bixi doontaan ayaan rajaynayaa Soomaaliya future fiican iyo barwaaqo ayaa u muuqata laakiin waxoogaa yar waxaan u baahanahay
inaan caqabaadka yararka aan ka gudubno oo kuwa dhexdeena ay ugu horeeyaan oo kuwaan hadda ka sheekeeyay dagaalka sokeeye ee weli sii macaan ay ugu horeeyaan oo miirka inoo soo noqdo khawaarijtana iska qabanno markaas wax waliba waa inoo hagaagayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay inaan maanta idin imaado waan ku faraxsanahay inaad sharaftan iyo karaamadan iyo habka laydin qalabeeyay inaad maanta halkan aad ku joogtaan inta aan soo dhageystay walaalaheen ee ay diyaarka la yihiin ka sii badan waxa idin soo socdaana ka sii badan waxaan rajaynayaa annaguna haddii ilaahay yiraahdo ayada haddaanu nahay madaxdii dalka oo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo taliyayaasha oo dabcan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaantayo waxaa naga go'an inaan ciidankeena dhisno way naga go'an tahay dalkan in amnigiisa la sugo waa naga go'an tahay dalkan inuu hore u dhaqaaqo way naga go'an tahay fadhina nooma yaallo waana degdegaynaa marka diyaar garooba aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh